Assalaamu calaykum. Soo dhawow daawaday, waa mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenan waxa aan kaga hadli doonaa warbixin kooban kuna saabsan basaaskii reer Masar ee sirta waddankiisa hooyo u gudbin jiray dalkii ay cadowga ahaayeen ee Israa'iil. Muddo hadda laga joogo 44 sano kuna beega sanadkii 1973 markii uu dhammaaday dagaalkii dalalka Masar iyo Suuriya ay la galeen Israa'iil, ayaa qoraa Yahuudi ah waxa uu bannaanka u soo saaray dhacdo xiiso badan oo muujinaysa kiisas ka dhex dhacay taariikhda sirdoonka. Waqtiyadii ay socdeen dagaalada iyo khilaafaadka Carabta iyo Israa'iil, oo ilaa iyo hadda weli laga doodo hadalhayntooduna aanay dhammaan. Qoraaga magaciisu yahay Uri Joseph ayaa buug uu soo saaray waxa uu si xigmad iyo farshaxanimo leh ugaga sheekeeyay dhacdo uu sameeyay basaas caan ka ahaa sirdoonka Israa'iil iyo Masar oo uu labadoodiba u shaqayn jiray, gaar ahaan intii lagu guda jiray dagaalkii la oran jiray Yom Kippur, kaasoo saameyn ku lahaa awoodda iyo go'aan qaadashada Masar ka hor iyo kadib markii uu dagaalku uu ka dhigay nin dhigay taariikh jiilka jiil looga sheekeeyo, kaasoo faa'iido u noqday Israa'iil in ay noqoto qaran ilaa iyo hadda dhidibada u taagan. Haddii aan dib u milicsano taariikhda uu ka tegay ee dunida ka yaabisay, waxay ahayd inuu ahaa sababta Israa'iil guusha u keentay dagaalkii sanadkii 1973 xilli ay quus ku dhoweyd oo Suuriya iyo Masar weerar laba geesood ah ku soo qaadeen. Buugga Joseph ka qoray dhacdada ninkan wuxuu ku xusay in Marwan ahaa geesi hay-adaha muqaabaraadka Israa'iil ee Muusaadka ka tirsanaa oo guul soo hoyay. Waxa kale oo uu sheegay in dalka uu ka soo jeedo ee Masar aanu khiyaanoole ka ahayn sida uu ku doodayo. Hadda waa nin siro aad u culus ka iibiyay cadow waqti dagaal socday. Marwan magaciisa sirta ah waxa uu ahaa Anjal. Wuxuu 24 saacadood ka hor inta aanay dagaalku soo qaadin ciidamada Carabtu wardigniin ah u diray hay-adaha sirdoonka Israa'iil ee Muusaad. Wuxuu ahaa nin macluumaad badan ka haya militariga Masar iyo qorshayaasha dagaal iyo hogaamiyayaasha ciidamada kala duwan. Waana tan keentay in Israa'iil guul weyn ku taamto waqtigaas oo ay jabiso ciidanka Carabta. Buugga uu qoray ninka u dhashay Israa'iil wuxuu inta badan isku weydiiyay su'aalo badan oo ah waxa kalifay qorista buugga ku saabsan qisada basaaska u dhashay dalka Masar ee la yiraahdo Marwan. Waxa kale oo uu sheegay sababta hay'adda sirdoonka Yahuudda ee Mossad uu aamintay basaaska reer Masar, haddana loo siiyay lacag gaaraysa 50,000 ilaa iyo 100,000 oo dollar oo waqti kasta oo macluumaadkiisa keeno bishiiba 1 ama 2 jeer, taasoo ay la socdeen hadiyado iyo alaabooyin kale oo qaali ah. Waxay jawaabtu noqotay in ninkii Marwan xogta siinayay uu rabay inuu macluumaad baaxad leh helo, maadaama waqtigu ku adkaa Israa'iil cabsi badanna ka haysatay in Masar iyo Suuriya ay dhulka la simaan. Taasina waxay keentay in 24 saacadood ka hor intii aan la weerarin ay heleen macluumaad. Waxay su'aashu noqotay sababta Marwan uu dhowr maalmood ama toddobaad ka hor macluumaad u hayay u soo gudbin waayay. Waxa uu qoraaga buuggan ku dooday in Marwan weerarkaasi la qorsheeyay uu si degdeg ah oo lama filaan ah ku ogaaday qorshaha, gaar ahaan looga soo sheegay magaalada London ee dalka Ingiriiska. Kadibna uu basaaska Marwan si degdeg ah ula hadlay mas'uulkii Muusaadka u xil saartay kiiskiisa si uu macluumaadka dagaalka u siiyo. Waxa qoraaga halkaas shaki ku geliyay in Marwan uu daacad u ahaa hay'adda sirdoonka Mossad, taasina ay sabab u ahayd inuu waqti dambe ogeysiiyo in weerarku ku soo fool leeyahay Israa'iil. Waxa kale oo qoraagu ku doodayaa in sirdoonka Masaaridu aanay aad u jeclayn in xog muhiim ah siiyaan qof Marwan oo kale ahaa oo aad ugu dhow maamulka, sababtoo ah Marwan waxa uu ahaa wiil uu sodog u ahaa madaxweynihii Masar ee Jamaal Cabdi Naasir, iyagoo ka cabsi qabay inuu noqon karo basaas laba dal ka dhexeeya, tuhunno badanna ka haystay inuu xog u gudbiyo. Sirdoonka Masar waxaa inta badan ku adag inuu basaas kale oo dal kale xog u gudbiya ka dhex shaqeeyo, maxaa yeelay waa kuwa inta badan kala shaki qaba, lamana mid aha sirdoonka reer galbeedka oo ay ku badan yihiin basaasiinta laba wadan ka dhexeeya. Dowladda Israa'iil waxay mar walba ogeyd in aanay ka shakisanayn in weerar ku soo fool leeyahay, laakiin war uma hayn waqtiga. Sirdoonka Israa'iil waxa kale oo ay ka warhayeen in Masar aanay awood militari u lahayn inay dagaal baaxad leh ku soo qaado si ay ula soo noqoto dhulka Sinai. Ciidamadii Anwar Saadaat ee Suuriya sida uu Marwan gudbiyay waxay aad u jeclaayeen inay Masar caawiyaan, iyagoo laf ahaantoodii aad daciif u ahaa oo aan awood badan lahayn. Waxa uu Marwan gudbiyay xogta militari ee ciidamada isbahaysiga ah, qorshahoodii iyo dagaalgeliyayaashoodii cidda ay yihiin. madaxii sirdoonka militariga Israa'iil ee waqtigaasi Chief Major General Eli Zair ayaa ka shakiyay Marwan xog sireedkiisa.
isagoo isku qanciyay in uu awoodda milatarigiisu ku filan tahay. laakiin agaasimaha hay-adda mukhaabaraadka Israel ee Mossad ee xilligaasi, Mr. Sevi Samir, ayaa aad ugu kalsoonaa xogta Marwan maadaama uu xogo hore guul u keenayba ka hayay. waxaa qasab noqotay in xogtaas la qaato lana dabaqo, taasoo keentay in guusha raacdo Israel. basaaska la oran jiray Ashraf Marwan waxa uu ahaa basaas aad u daayar oo dhalinyaro ahaa. xaaskiisa waxay ahayd gabar u madaxweyne Jamaal Cabdi Naasir oo ahaa madaxweynaha Masar xilligaasi oo xafiiska madaxtooyada uu ka shaqaynayay. waxaa xusuus maskaxeed iyo mid taariikheedba dadka Masar ku reebay Marwan khiyaamadii qaran ee uu ku kacay, maadaama uu iibiyay macluumaad sir ah, qorshe dagaal, iyo daqiiqadihii uu Anwar Saadaad la kulmay midowgii Soviet ee Ruushka iyo hogaamiyayaashii Carabta. waxa Marwan uu ku dhiiraday inuu lacag qaato, iibiyana sirta dalkiisa hooyo si uu uga hor yimaado sodogii oo aan weligii aaminin kana shaki qabay. waxaa la xusuustaa inuu howsha basaasnimo ee Israel u hayay bilaabay sanadkii 1970-aadkii markii looga yeeray safaaradda Yuhuudda ee ku leedahay caasimadda London ee dalka Ingiriiska, kadibna laga dalbaday inuu siro aad u culus ee Masar leedahay ka iibiyo. waxa ay Israel ku qaadatay muddo dheer inay iska hubiyaan inuu yahay basaas Masar laf ahaanteedu soo dirtay, balse markii ay hubiyaan in macluumaadka uu keenayo ay run yihiin, waxa ay bilaabeen inay si rasmi ah u aaminaan waxa uu basaas u ahaa Israel muddo ka badan 30 sannadood. waxaa xusuusta ugu weyn oo aan la hilmaami karin ay ahayd dagaalkii Yom Kippur oo Israel ugu abaalguday inay siiso $100,000 maadaama uu badbaadiyay nolosha askartooda iyo dadkooda, kuna bedesho tiro badan oo askarta waddankiisa difaacaysay ahayd. basaaska Ashraf Marwan waa ninka taariikhda ka dhigay dunida basaasnimo ee bariga dhexe. sanadkii 2007 ayuu ka soo dhacay guri dabaq ah oo ku yaala magaalada London ee caasimadda waddanka Ingiriiska oo uu qolka deganaa. ilaa ay hadda sababta keenta in dhimashadiisu iyo inuu dabaqaasi ka dhaco waa la garan waayay, xalna waa loo waayay. daawade, guud ahaan macluumaadkii aan kaga hadlaynay basaaskii reer Masar ee sirta dalkiisa hooyo u gudbin jiray Israel, halkaa ayaan kusoo gunaanadaynaa. inta aan muuqaalka xiga ku kulmi doonana, waxaan idin leenahay amaano Allah.